بسم الله الرحمن الرحيم لما دليل الصوماليات كسر دوادا معدك صوما ويلو وحين كوجد جرنا كورس NSE4 FortiGate Firewall مقالده روحان براكتيس كسر سميني User Authentication via LDAP يسيدو كله Group Authentication إنه أديكسنينا LDAP مقال كاني وحان كبر دونا درسي مهمة وحان حل دونا إسلا مقال كان جديسة problem إن جهستا نتوجي إنه صار اسمه اللابس كهر problemka in haysta marka hore hadaan kuu sheego kadibna aan kula wadaago solutionka iyo waxa aynu ku baranayno muuqaalkan problemka in haysta ayaa ah kaba soo qaad haddii aan firewallkan gudihiisa ku sameyno policygaasoo internetka u ogolaanaysa kaba soo qaad groupka aynu soo sameynay duruustii hore ee groupka HR-ka innaga ilaa hadda waxaan haysanaa HR-ka waxaa memberka ah Axmed iyo Cumar iyo waxaan dib kaga biirinay casharadii hore Cabdi kaba soo qaad waxaan firewallka gudihiisa ku abuurnay policygaasoo ogolaanaysa kaliya userska ka tirsan departmentiga HR-ka inay isticmaalaan internetka kaba soo qaad waxa marka userska kamid ah Axmed iyo Cumar iyo Cabdi waxa marka aan rabaa inaad example-kan kaliya xoog ila saarto waayo waxaan xalin doonaa arrin muhiim ah oo ku saabsan mushkilo ku saabsan user authentication kaba soo qaad computerkan PC1 waxa isticmaalaya Axmed ba isticmaalaya كمبيوتر كان waxa isticmaalaya kaba soo qaad Ali hadan markale ku soo groupka waxa dadka memberska ka ahaa Ali kuma jiro groupka HR ka kuma jiro saadarteed Ali looma ogola marka inuu internet isticmaalo waayo waxaan ku soo yiri waxaan soo dhahnay wax yar ka hor groupka loo ogol yahay in internet isticmaalaan waa HR ka kaliya hadan marka firewall wada galno waxaan wada hubinaynaa bolisigaasna muuqaalkii hore ayaan soo wada dhisnay waxaan rajeynayaa marka ardayga daawanaya muuqaalkaani inuu casharada sidii u kala horeeyaan u soo daawaday muuqaalkii hore waxaan soo dhisnay policy waxaan u soo bixinay LAN to internet hadaan yar edit gareeyo waxaan soo niri sida tan policygaani waxaan ogolaanaynaa kaliya source-ga waa inuu yahay qofka isticmaalaya internetka member ka yahay HR group saadarteed marka inagu eegayna policygan kaliya dadka internetka loo ogol yahay waa dadka memberka ka ah HR-ka Ali kuma jira marka waxa suuragal ah marka inay dhacdo arinta soo socotana waa mushkilo aan rabno inaan xalino arinta waa sidatan Axmed iyo Ali waa saaxiibo waa dad isku fiican marka Axmed wuxuu leeyahay wuxuu siinayaa username-kiisa iyo password-kiisa ayuu wuxuu la wadaagayaa Ali wuxuu leeyahay Ali ku soo gal adigana username-ka Axmed password-kan waa 123 internetka sida ku soo gal waxaan doonaynaa marka muuqaalkan inaan arintaasi xalino marka waxaan ku tusi doonaa intaan xalinta gaarinba mushkiladda ayaan ku tusi doonaa waxaan ku tusi doonaa in Axmed uu la wadaagi karo username-kiisa iyo password-kiisa Ali uu la wadaagi karo tan ay tahay mushkilad kadibna arintana waan xali doonaa aan marka hore aan labka sameeyno waxaan galayaa PC1 markaan galno PC1 saad arkaysid hadaan bing ku sameeyo 8888 waa public DNS-ka Google hada enter dhaho internet kuma xirna PC1 userka isticmaalayo waa userka waa Axmed marka Axmed wuxuu sameeyaa marka wuxuu doonayaa inuu internet galo wuxuu sameeyaa activity salahan wuxuu qoriyaa Fortinet ama any search ayuu sameeyaa waxa uu soo baxaya marka portalka la gelinayo username iyo passwordka wuxuu halkan ku qoriyaa marka Axmed buu ku qoriyaa Axmed username-kiisana wuu yaqaanaa iyo password-kiisa hadaan geliyo marka passwordka Axmed hadaan continue dhaho intaan continue ku dhufan wali internet ma haysto Axmed laakiin markuu information-kiisa si sax ah u geliyo portalka kadib hadaan halkan tagno hadaan marka la qoro Axmed passwordkan aan iska saxo y okay continue hadaan dhaho hadda waxa arkaynaa wax yar kadib Axmed inuu haysto internet wax yar koran waxaan qalday kaliya passwordka baan qalday hadda Axmed wuxuu haystaa internet access hadaan مثلا search kala sameeyo salaam waxaan sameeyaa Fortinet hada enter dhaho Axmed internet ayuu hadda haystaa computerkiisa hadaan firewallka galna darsiga hore waan ku soo baranay sida userska loo monitor gareeyo ama monitoring sida loogu sameeyo waxaan tagaynaa dashboardka waxaan tagaynaa sidoo kale firewall user monitorka waxa inoo soo baxaya marka userka Axmed inuu active yahay oo khadka ku jiro oo isticmaalayo internetka kaba soo qaad marka userka Axmed wuxuu la wadaagay username-kiisa iyo password-kiisa Ali wuxuu isticmaalayaa computerka PC2 Alina member kama aha groupka loo ogol yahay in internetka isticmaalaan oo ah groupka HR-ka
marka computerka PC2 haddaan tagno kani waa computerka PC2 computerka PC2 haddaan ping ka sameeyo tusaale ahaan ping to 8888 waxaad arkaysaa cali ma haysto wax internet ah laakiin cali waxaa passwordka iyo usernameka siinaya ama kasoo qaadanaya saaxiibkiis Axmed marka cali wuxuu sameynayaa marka si lamida wuxuu halkan ku qorayaa marka Axmed ayuu qorayaa waa isla usernamekii Axmed halkan wuxuu ku qorayaa marka informationkii Axmed saaxiibkiisa ayuu kasoo qaatay informationkan intaan continue ira dhihin wax internet ah ilaa hadda ma haysto computerka cali waa computerka PC2 kor hada ila egtana computerka aan ku jiro waa PC2 marka hada continue dhaho aan meeshan yar furo wax yar kadib waxaan arkaynaa marka inuu cali heli doono internet access aan ku soo yar celiyo mar kale waxaan leeyahay ka soo qaad cali inuu activity yar sameeyay any activity waxaan midsan qorayaa https google.com okay hadii activity ga aan sameeyay waxaan ugu talagalay kaliya in portalka oo marka la soo baxo kaliya portalka authentication ma ula jeedaa waxaan qorayaa marka Axmed computer still aan ku jiro waa PC2 iska fiiri waxaan qorayaa marka usernameka iyo passwordka Axmed ayaan halkan ku qorayaa inta continue dhihin marka waxaad arkaysaa marka wax internet ah ma haysto computerka PC2 ee cali marka hada continue intaan dhihin iska fiiri username aan ku soo galayo waa Axmed marka continue dhaho haddaan furo marka CMD waxaan arkayaa marka cali inuu sidan internet ku helay cali wuxuu sameyn karayaa marka search haddaan halkan ku qoro Cisco tusaale ahaan kaba soo qaad computerka kale haddaan ku furo oo ahaa labada computer haddaan isbarbar dhigo midkan Fortinet aan ku baarayno tusaale ahaan waa computerka Axmed midkan Cisco inoogu qoran tahayna waa computerka cali kor waxaa kugu qoran PC2 laakiin labadoodaba maxay isticmaalayaan same username iyo password ay internetka ku soo galeen taana waa mushkilad markii la joogo real ahaan oo userska lama ogol in loo fasaxo in halka user ama halka account dhowr jeer khadka lagu soo gali karo ama internetka lagu isticmaali karo marka arinta waan xadidi doonaa laakiin marka hore haddaan tago dashboard haddaan marka ku laabto kadib haddaan tago marka monitorka haddaan halkan refresh iska dhaho haddaan meeshan refresh dhaho mar kale wax yar baro inaan ku yarayso waxaad arkaysaa marka fileku gudihiisa waxa kaaga soo baxay 2 session oo magaca Axmed ama account Axmed ku furan inay jiraan kani waa Axmed waa isla Axmedkii mar kale laakiin laba computer ayaa kala isticmaalaya same username arintan baynu xalinayna marka arintan sidaan ku xalino marka hore Axmed khadka baan ka saareynaa userka Axmed qofka soo ku soo galay userka Axmed khadka baynu ka saareynaa right click baynu ku leenahay halkan the authentication step kana ama qaabka the authentication ka loo sameeyana practice ka hore baan ku soo qaadanay kan waxa leeyahay the authentication mar kale labada user ee ku soo galay same username ka khadka ayaan ka saarnaa sida marka arintan u xalino waxaan imaanaynaa marka cilmiyeedka muuqaalkan ah concurrent user connections userka imisa connection ayuu accountkiisa same time ku sameey karaya default ahaan waa 0 hadda sidaan arkayno defaultiga waa 0 macnaheedu waxa weeyaan hadda meeshan isla tagno meeshan kugu qoro concurrent user connection ka ama concurrent connectionska waa 0 macnaheedu waxay tahay waa unlimited معناها يو account أحمد وحن أديك سكرنا multiple times أو unlimited أن أديك سكرنا وهدي concurrent connection كvalue جيسوي هاي أما قيميس وياهي 0 لكن هذا concurrent session كا أما concurrent user connection كهذا كديجو قيميه سو 1 هذا كديجو معني ذو ما حي وحن account كاسي كل limit جريني only one time إنه account كاسي active أهكر مك إنك وحن سمعنا مك هدف كين وياهي إن المشكلة دي هاد أينو أرجناي إنه كحلينه inaynu bedelno value concurrent connection kana dhigno 1 inaynu ka dhigno default ahaan hadda wuxuu inoo yahay 0 oo keenaysa inuu noqdo unlimited maximum kan waxay geey kartaa waxaan geey kartaa 100 in 100 mar hal mar la soo gali karo ama 0 oo ah inta mar adiga aad doonayso waa unlimited 0 hadii aad ka dhigto waa unlimited sidaas kaga fiir waxaan galayaa marka oo aan arinta ka sameeynaa CLI ama command line interface ka hadda waxaan ku jiraa marka firewallka CLI giisa waxaan qorayaa marka admin enter ayaan leeyahay password kan gelinayaa 1 waxaan leeyahay marka config ayaan leeyahay marka config dhaho kadib waxaan leeyahay marka system kadibna global enter ayaan leeyahay config system global waxaan halkan ku qorayaa marka set policy authentication concurrent
kaliya set ayaan qoray kadibna policy markaan qoray waxaan taabanayaa tab asaba ii dhamaystiraya marka waxaan rabaa marka inaan helo policy authentication concurrent halkan waxaan ku qorayaa marka 1 ayaan ku qorayaa marka 1 ku qor enter ayaan leeyahay haddaan irahay show haddaan meeshaan ku qoro wuxuu ii soo saarayaa marka commandiga aan qoray oo ah policy authentication concurrent session waxaan ka dhignay 1 end ayaan leeyahay kan macnaheedu waxay tahay marka any user ee firewalka ku abuuran ha ahaado local ahaan ama ha ahaado user aynu ka soo waceyno from active directory-ga sidaan muuqaalada horeba soo baranay user-kaasi number of concurrent session-ka loo ogol yahay waa 1 marka hadda inaga markaan settings-kan sameynay oo aan waxaan ka bedelnay firewalka arinta hadda aan sameynay ma inaga xalinaysaa marka mushkiladii hadda ina haysatay aan mar kale test gareyno waxaan mar kale galayaa BC1 iyo BC2 hadda ila yara xasuusato wax yar ka hor labada user ee ku soo galay account Ahmed internet-kan ku isticmaalayay the authentication ayaan ku sameynay oo khadka aynu ka saarnay saadarteed BC marka hadaan galo waan CMD ga furo waxaad arkaysaa inuu yahay request time out hadaan mar kale ku celiyo CMD kadibna ping to 8888 kani waa BC1 marka enter dhaho wax internet hadda ma haysto BC1 si lamid ah hadaan galo shaashada BC2 waa kan BC1 saad arkayso waa request time out wax internet ma haysto shaashadan kalena waa BC2 hadaan furo marka CMD ga hadaan furo marka CMD ga computerka BC2 ga sidoo kale hadaan ku soo celiyo marka la pinkiga ahaa 28888 sidoo kale wax internet ma haysta labadoodaba marka computerka uu asal ahaan uu Ahmed u isticmaalayo waa BC1 weeyaan marka waxaan sameynayaa marka sidatan waxaan galayaa marka BC1 baan galayaa waxaan tagayaa tusaale ahaan BC1 waxaan furayaa marka page-kan baa iska xirayaa tusaale ahaan waxaan sameynayaa marka any activity ayaan ka generate gareynayaa gudaha BC-gan sida iigu soo baxdo portalka authentication waxaan qorayaa tusaale ahaan Fortinet tusaale ahaan haddaan Fortinet qoro okay waxaa ii soo baxa marka portalkii kani marka waa BC1 kor ila eg waa BC1 waxaan ku galayaa marka Ahmed baan ku galayaa Ahmed ayaan qorayaa passwordkan aan qoro passwordka Ahmed passwordkan iyo username-ka muuqaalada hore waxaan ku abuurnay gudaha active directory userkan iska fiiri ma aha user local ahaan firewalka ugu abuuran waxaan casharadii hore baranay sida la iskugu xiro active directory-ga iyo firewalka si aan u helno centralized authentication tan aan ka soo hadalnay hadda waxaad arkaysaa still ma haysto wax connection ah aniga maana dhihin continue maana ku dhufan wax internet aan ma haysto hadda markaan continue dhaho haddaan mar kale ku celiyo waxaan yara qalday passwordka haddaan mar kale ku celiyo Ahmed waxaan leeyahay continue okay haddaan mar kale qoro Ahmed ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay marka passwordka haddaan iska saxo continue ayaan leeyahay okay hadda passwordku ii saxsan yahay wax yar kadib waxaan arkaynaa marka in uu userkani internet helayo waa kan internetkiisa marka haddaan search sameeyo tusaale ahaan haddaan halkan ku qoro Cisco ama Fortinet mar kale waxaan arkaynaa marka inuu userkani internet haysto haddaan isku dayna marka in BC2 na aan ku soo galno same username maxaa dhacaya marka haddaan iska soo laabay waxaan galay marka BC2 shaashadiisa waa tan saad arkayno BC2 wax internet ah ma lahan saad arkayno oo internet kuma xirna haddaan mar kale soo celiyo ping to 8888 wax internet ah ma lahan saad arkayno waa request time out waxaan sameynayaa marka activity ayaan sameynayaa si portalka igu soo baxo kadibna tusaale ahaan qoriyaa Fortinet tusaale ahaan oo kale markuu portalka authentication-ka ii soo baxo waxaan ku galayaa marka BC2 baan joogaa iska fiiri korka BC2 baan joogaa waxaan ku galaynaa marka userka Ahmed ayaan mar kale ku galaynaa laakiin haddan ma inaga aqbali doonaa marka su'aasha waxaan qoriyaa marka Ahmed qoro kadib waxaan qoriyaa marka passwordka haddaan iska saxo kadib waxaan leeyahay continue marka continue dhahay meeshan fariinta ii soo baxay iska fiiri fariinta hal mar ila akhri haddaan zoom ku yar yaraho meeshan waxaa kuu soo baxaya marka sorry users concurrent authentication is over limit macnaheedu waxay tahay kuma geli kartid userka Ahmed hal mar kaliya ayaa la ogol yahay inuu userka Ahmed lagu soo galo account-kaas markiina waan isticmaalnay oo gudaha BC1 baynu ku isticmaalnay haddaan marka tagno admin kadibna haddaan iraho 1 hadda waxaan arkaynaa markaan tagno monitorka dashboard markaan tagno
monitor ka tagno user Axmed kaliya hal mar baan ayaan ku soo galnay marka arintan waxaan xalinay mushkilad real life ahaan ka hor imaan doonta waxa loo baahan yahay real ahaan in userska account-kooda kaliya u ogolaato in hal mar lagu soo gali karo hal mar waa tusaale un kaliya laakiin inta badan shirkadaha waxay doortaan in hal mar kaliya lagu soo gali karo laakiin waxa exception ah userska qaar oo kale waxa loo fasaxi karaa in marna uu ka soo gali karo laptopka marna ka soo gali karo mobilka taana waxay ku xiran tahay policy-ga u degan shirkadda laakiin markasta adiga aad doonaysid inaad xadidid limit garaysid number of session-ka oo user account-ka lagu sameey karo waxa ku xadidaysaa settings-ka hadda aan baranay oo ahaa waxa tagaysaa config system global set policy authentication concurrent hadda meesha hadda orano 2 haddaan ka dhigno macnaheedu waxay tahay BC2 waan ku soo gali karnaa user-ka ama account-ka Axmed waxaan rajeynaa marka dirsan inaad ka faa'iideen assignment-ka aan dirsan ku diray waxa weeyaan inaad xadidid number of concurrent session-ka kuna soo gashid user Axmed bayaan hadda test gareeyay adigu waxa test gareysaa userska kale ee memberka ka ahaa HR-ka waxa test gareysaa Umar computer-kan ka soo qaad assignment-ga waa sidan computer-kan waxa iska leh Umar ay isticmaalaya computer-kan still waxa isticmaalaya Ali marka waxaan isleeyahay maadaama laabiskii hore step by step assignment-iska igala shaqeynaysay in userskan ay ku diyaarsan yihiin already kugu diyaarsan yihiin active directory-ga sidoo kale policy-ga firewall gudihiisana waxaan rajeynayaa inaad diyaarisay waa assignment-iska hore bay inoogu jirtay policy oranaysa LAN to internet oo aad fasaxaysid kaliya memberska ka tirsan HR group-ka kaliya saadarteed maadaama HR group aan haysano Umar iyo Axmed iyo Cabdi waxaan ka doonayaa marka computer-kan user isticmaalayo waa Umar account-kiisa waxaan doonayaa kaliya in lagu soo galo hal mar kaliya test garay after iyo before oo macnaheedu waxay tahay intaadan adiga concurrent session-ka intaadan limit gareynin isku day user-ka ama account-ka Umar inaad ku gasho BC1 iyo BC2 aragto in Umar account-kiisa lagu gali karo multiple computers ama multiple sessions inaynu ka sameey karno from account-ka Umar kadibna limit garay Umar ku limit garay 1 test garay kadib waxa test garaysaa marka in Ali hadii uu lacag la helo ama Umar hadii uu la wadaago information-kiisa user-ka Ali inuusan adeegsan karin user account-ka Umar waayo account-ka Umar kaliya waxaan ku limit gareynay in la isticmaali karo kaliya hal mar waxaan marka rajeynayaa arday kasta inuu ila soo wadaago assignment-gan waxaan ku kulmi doonaa darsiga soo socda hadda